dhinaca kalena qaar ka mid ah wadamada muslimiinta iyo jaaliyadaha muslimiintu wadamada ay ku badan yihiin ayaa waxa wax laga bedelay eedaamkii salaada halkii eedaanka dadka loogu sheegi jiray in masaajidada ay yimaadaan oo ay ku tukadaan ayaa imika waxa loogu bedelay in guryahooda ay ku tukadaan oo ay joogaan mar kale aan idinku celiyo wariyahayaga deeq darajo waa hubaal in cudurka coronavirus uu noqday cudur caalamka si weyn u saameeyay taasi oo noqday cudur safmar ah oo waxyeeladiisu ay gaadhay in ka badan 100 wadan wuxuu horseeday in la xiro xarumaha waxbarashada ganacsiga iyo goobaha lagu cibaadeysto sida masaajidada haddaba aadaanka salaada oo lagu muujiyo in muslimiinta masaajidada ay yimaadaan ayaa taasi beddelkeeda lagu bedelay in fariin lagu faro dadka in ay guryahooda ku tukadaan qaar ka mid ah masaajidada dalalka carabta iyo dalka Mareykanka ayaa bilaabay in aadaanka salaada uu sidan u dhaco waan filayaa in dad badan marka ay maqleen aadaankaasi ama ay ku arkeen baraha bulshada in ay isweydiiyeen maxay diinta islaamku ka qabtaa su'aashaasi waxa ay suura gashay inaan weydiiyo Sheekh Cabdirasaaq Xaashi oo ah imaamka masjidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka bismillah mas'alada ku saabsan ma la dhihi karaa gurihiina ku tukada diintuna maxay ka qabtaa horta saddex mas'alo baa u baahan in la cadeeyo kow ma banaan tahay oo diintu maxay ka qabtaa goorma la dhihi karaa iyo xagee aadaanka ka galaysaa mas'alada koobaad culimada muslimiinta wax iskuma khilaafsana macnaheedu waxa weeye isku wada waafaqsan yihiin in qofka aadaamaya ay u banaan tahay inuu yiraahdo gurihiina ku tukada ama ha yiraahdo as-salaatu fi ar-rihaal ama ha yiraahdo sallu fi rihaalikum ama ha yiraahdo sallu fi buyutikum ama as-salaatu fi al-buyut qaabka uu dhahawa gurihiina ku tukada inuu dhaho way banaan tahay hadii uu jiro cududaar roob dabayl dhiiqo qabow cabsi iyo wixii la mid ah ma dhacday waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam inay arrinkaasi sugan tahay inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu yiri guryaha ku tukada dhaha way dhacday xadiis bukhari iyo muslim ba ay warinayaan Abdullah ibn Umar iyo Abdullah ibn Abbas labadaba waxay amri jireen qofka muadimka inuu yiraahdo gurihiina ku tukada markaas waxay dhaheen nabigaana amray ama nabiga amray muadinkiisi ayagoo la jooga oo safar ku sugan inuu yiraahdo gurihiina ku tukada marka arrinkaas waa arrin sunnada waafaqsan bal waa sunno haday dhibaato jirto dadka inaan la kalifin ee la yiraahdo gurihiina ku tukada aadaanka xagee ka galaysaa al-Imam Shafi'i kitaabkiisa al-wuxuu ku cadeeyay inay laba waj banaan tahay labada xadiisna ay kala sheegayaan mid waxa weeye inuu aadaamka dhixgaliyo oo meesha ahayd hayya ala as-salaah inuu yiraahdo sallu fi buyutikum inuu dhaho oo hayya ala salaah ay bedesho waxa kale u banaan aadaamka markuu dhameeyo kadib inuu yiraahdo sallu fi buyutikum labada waj way banaantay mas'aladaas waa mas'alo sunna ah oo shaki aan lahayn oo culimadu isku raacsan yihiin haday dadku maanta la yaabeen oo inkireenna waqtigii saxaabada nabiga radhiyallahu alayhim ayay ku inkireen oo ay dhaheen maxaa sameeynaysan gaasay dhihi jireen qof anaga naga khayr badan oo nabiga aba sameeyay sallallahu alayhi wasallam aad ayuu mahadsan yahay Sheekh Cabdirasaaq Xaashi ilaa iyo hadda cudurka coronavirus waxa uu geeriyooday in ka badan 5800 qof wuxuuna soo ritay dad kor u dhaafaya 154,000 caalamka oo dhan deeq darajo Universal TV Minneapolis